cilmi baaris aan sameeyey ayaan waxaan ku ogaaday in bidaartu ay u qaybsanto 3 qaybood. qaybta koobaad waxay ku timaadaa dhaxaltooyo ama farac ama heritage wax loo yaqaano. tusaale ahaan haddii awowga uu bidaar lahaan jiray ama aabbaha adigana ma huraysid inaad bidaar yeelato, taas marka waxay ku imaan kartaa qaab dhaxaltooyo ah ama heritage ah ama wiraathi ah. qaybta labaad ama nooca labaad oo ka mid ah bidaarta ayadana waxay ku timaadaa jiro ama cudur. tusaale ahaan sometimes waxaa jiro cudurro ku dhaca timaha. dadka qaarkood waxaa ku yimaado xanuun xagga timaha ah, timo daadasho, taasoo sababta ugu dambeyntii in timihii ay ka haadaan oo alla u xiir uu noqdo qofka. nooca saddexaad ama qaybta saddexaad oo ka mid ah qaybaha ay u qaybsanto bidaarta waxa weeyaan waa nooc ku yimaado fikir. qofka sidii u fiicnaa oo timihiisa ay caadi ugu ahaayeen ayaa waxaa dhacayso siduu u fikiraayo ugu dambeyntii salaxyo ayuu yeelanayaa. marka dambene salaxyada waxay isku bedelaysaa bidaar ilaa kugta ku sikato. marka saas darteed marka insha allahu tacaala noocyada bidaarta ay u kala baxdo intaas ayaan kusoo koobi lahaa. aad baa u mahadsantahay. jazakum allahu khayran wa shakara allahu xusna mushaahadatikum istimaacikum. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.